Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadanaynaa drug use intravaginal. Waa daawooyin aad muhiim u ah. La soco drug use intravaginally waa daawooyinka aadka muhiim ah. Waxaa ka mid ah Quanadolor, waxaa ka mid ah Metronidazole, waxaa ka mid ah Bromycin sulfate, waxaa ka mid ah sodium isopropanol ayaa ka mid ah. Daawooyinkan waxay inta badan caawiyaan waxyaabaha jirka soo galo ee wasakhda ah, sida markii uu ku dhaco infection qofka vaginalka markuu ugu dhaco. Waa daawooyinka oo keliya ee lagu dhaqi karo ee jeermiska dilo ama dheecaanka rashka ah ama wasakhda leh. Intaas ayuu ku kooban yahay daawooyinkan anti vaginal drug ayaa la dhihi karaa. Waa daawooyinka jirka vaginalka markuu soo galo wasakhda ka baabi'inayo. Waxaan kaloo qaadanaynaa drug use acne, daawooyinka finanka oo jirka ha ka soo baxaan ama wejiga ha ka soo baxaan. Waa 4 daawo ayaa meeshan ku qaadanaynaa. Daawooyinka finanka ka soo baxaan ee cudurkiisa la yiraahdo anti acne daawadiisa koowaad waxaa ka mid ah Nadifloxacin. Waa daawooyinka loo isticmaalo asigana. Clindamycin way jirtaa oo lambar 2 ah. Lambar 3 waxaa jiro Erythromycin. Lambar 4 waxaa jiro Azelaic acid ayadana way jirtaa. Waa daawooyinka finanka maqaarka ka soo baxo ama wejiga ka soo baxo. Intaas ayaa u garan kartaa. Waxaan kaloo qaadanaynaa daawooyinkan antifungal drug. Waa daawooyinka fangayada ah. Waa hadda cashirkeena waa ku soo qaadanay, laakiin maanta waxaan qaadanaynaa ayadoo daawo ahaan bes daawooyinka fangaska ka mid ah ayaan qaadanaynaa. Marka hore waxaan soo qaadanay daawooyinka fangaska ah, dhibaatada ay leedahay, qaabka loo isticmaalo, waxyaabaha looga hortagi karo, daawooyinka lidka ku ah, maxaa sababo, waxyaabahaas ku soo qaadanay iyo meesha ay daaweynayso fangaska. Laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa antifungal drug. Waa daawooyinka keliya ee fangaska loo isticmaali karo. Waxaa u isticmaalaynaa Nystatin. Hore u soo aragnay Nystatin. Dropna waa la heli karaa, tabna waa loo heli karaa. Hamycin ayadana way jirtaa. Grizovolfin oo hore u soo aragnay ayadoo ah kareem iyo ayadoo ah tab, inta waa soo aragnay. Clotrimazole waa soo aragnay ayadana. Clotrimazole waa soo aragnay ayadoo tab iyo ayadoo oo kareem ah. Magnazole way jirtaa ayadana. Oxyconazole ayadana way jirtaa. Ketoconazole waan soo aragnay ayadoo kaniini iyo ayadoo kareem, inta waa soo aragnay. Fluconazole sidoo kale cashirkeennii horeeta ayaan ku soo aragnay. Fluconazole tabna way jirtaa, kareemna way jirtaa. Voriconazole intaba way jiraan. Waa daawooyinkan fangayada caadiga sababo. Halkan ayaan ku soo koobaynaa cashirkeena. Wabillaahi tawfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.